akhyaartana dhegeysanaysa waa mar kale barnaamijkeena gobonimo doon TV qodobada maanta oo idin hayana waxaa kamid ah dagaal culus oo ka dhacay qayb kamid ah gobolka Hiiraan diyaaradaha Mareykanka oo qayb ka ah dagaalkaasi iyo goobihii lagu dagaalamay xaalkoodu waa sidee qodobadaasi ayaa faahfaahin doona wararka ka imaanaya gobolka Hiiraan ayaa sheegaya in dagaal culus oo u dhaxeeya ciidanka xoogga dalka oo gacan ka helaya kuwa macawisleyda iyo kooxda al-shabaab oo ka dhacay deegaan oo ka tirsan gobolka Hiiraan dagaalka ayaa xalay ilaa saakay ka socday deegaanada Beero Yabaal iyo Bardheere oo ka wada tirsan gobolka Hiiraan waxaana halkaasi dagaal faraha looga gubtay uu ku dhaxmaray ciidanka huwanta iyo xoogaga al-shabaab sargaal ka tirsan ciidanka xoogga dalka ayaa sheegay in howlgal qorsheysan ku qaadeen xubno ka tirsan ururka al-shabaab wuxuuna sheegay in ay isku urursanayeen deegaanada ka tirsan gobolka Hiiraan ayna khasaare xoogan ku gaarsiiyeen dagaalka wararka aan helayno ayaa sheegaya in dagaalka ay qayb ka ahaayeen diyaaradaha dagaalka oo duqeymo culus la beegsaday goobihii ay ku sugnaayeen kooxda al-shabaab waxaana wali socdo howlgallada ay wadaan ciidanka dawladda iyo kuwa deegaanka dagaalka iyo duqeymaha culus ee ka dhacay deegaanada ka tirsan gobolka Hiiraan ayaa lagu soo waramayaa in ay ka dhasheen khasaaro xoogan dawladda Soomaaliya ayaa sheegtay in faahfaahin dheeraad ah ka bixin doonaan howlgalka ka dhacay gobolka Hiiraan